السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبadu waa saddex nooc. mid waxaad ugu baahan tahay sida aad ugu baahan tahay cuntada, midna waxaad uga baahan tahay qadarka aad uga baahan tahay daawada, midna waxa uu la mid yahay cudurka oo kale. saaxiibka la midka ah cuntada waa saaxiibka marka aad la kulantid rabbigaa ku xusuusiya, aad mar walba dareemaysid marka aad u timaadid inaad tahay qof aakhiro oo aadan ahayn qof adduunyo. saaxiibka noocadaas waxaad ugu baahan tahay sida aad cuntada ugu baahan tahay, waxaad badsataa la joogiisa, saaxiibtinimadiisa iyo la kulankiisa. nooca labaad ee saaxiibada waa mid aad uga baahan tahay qadarka daawada aad uga baahan tahay oo keliya. daawada markasta uma baahnid, waxaad u baahan tahay marar gooni ah oo keliya. saaxiibkaani waa nin adduunyo, laakiin marka aad u timaadid danahaaga ayuu kuu fuliyaa. waxaad midkaasi kala kulanta ood kala saaxiibtaa qadarka dantaadu ay ku jirto oo keliya, kulankiisa ha badsanin. nooca saddexaad ee saaxiibadu waa nooc la mid ah cudurka oo kale. cudurku mar walba waa dilaa, nafsadaada uma ogolid, ha la kulmin. qofkaasi waa midka markasta ku xusuusiya adduunyadaada, laakiin aakhirada aan shuqul ku lahayn. kaasi ha la kulmin, hana la faraysanin, fadhigiisana ha badsanin, iska jir. waxa weeye cudur dilaa ah. saddexda nooc ee saaxiibada ee aan kuu soo tiriyey, nooca koowaad marnaba kama maarantid, waa walaalkaaga aadka kuugu dhow ee adduunka iyo aakhiradaba. nooca labaad waa midka aad isu kaalmaysataan howlaha qaar ka mid ah, laakiin markasta uma baahnid. nooca saddexaad ka kaaftoon. aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iiday. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh.